Ramadaan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 3 bisha May sanadka 2020 qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaya dagaal qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo amar degdeg ah soo saaray ciidamo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo ku dagaalamay duleedka Galkacyo dowladda Qatar oo wafdi u diraysa Somaliland iyo ujeedka ka dambeeya oo loogaday al-shabaab oo toogatay Yaasiin Maxamuud oo ku eedeysay inuu u shaqeynayay Mareykanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo laba arrin faray in diiradda ay saaran guddiga ka hortagga COVID-19 ciyaaryahan Masuud Mustafa Ozil oo deeq afurin ah ugu deeqay qoysaska danta yar ee Soomaaliya iyo israasaaseen ka dhex bilaabatay labada Kuuriya iyo xiisad ka taagan xuduudda dalalkaasi intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biro subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka share gare oo la wadaag saaxiibada kuma hasanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka haatana aan idinku wareejiyo waryaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasantahay Ramadaan mubaarak daawadayaal halkan waa janaalka dabagalka wararka haatan marka aanu si aanba qaadno qodobada warka janaalkana faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal qasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho dagaalkan oo ka dhashay khasaaro ayaa la sheegay in ciidamada maamulka degmada Kaaraan iyo maleeshiyad hubeysan in uu ku dhaxmaray xaafad lagu magacaabo Bambacoole oo ka tirsan degmada Kaaraan goobjooga ku sugan xaafadda iska horimaadku uu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in la isku qabsaday dhul ku yaala goob ajid ah oo la dhisanayay sidaasna ay ku dagaalameen ciidamada ammaanka degmada iyo maleeshiyadka hubeysna inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay iska horimaadkan halka ay ku dhaawacmeen 2 qof oo kale waxaana wali la soo sheegaya in ay taagan tahay xiisada ka dhalatay dhulka la isku qabsaday degmada Kaaraan oo ay joogaan maleeshiyad hubeysan ayaana marar badan waxa ka dhaca iska horimaad salka ku haya dhul la isku haysto iyo sidoo kale isbaarooyin iyo dhismayaal lacago sharci darro laga qaadanayay geesta kalena madaxweyne Farmaajo ayaa amar degdeg ah siiyay guddiga gurmadka qaran wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Saciid Xamza ayaa ka warbixiyay gurmad degdeg ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ee gaarsiinayso deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug halkaas oo daadad ku fatahay ay sababeen xaalad bini'aadanimo oo adag wasiirka ayaa tilmaamay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faray guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ay degdeg ugu howlgalaan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta ku dhibaataysan Bacadweyne oo hooy iyo hantiba ku beelay daadadka ku fatahay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaana ka tacsiyay dadka ku nafwaaya fatahaadaha ka dhacay Bacadweyne isagoona muujiyay sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaanba golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay uga murugaysan dhibaatadan wasiir Xamza Saciid ayaana ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka degdega ee loo fidinayo deegaanada ay fatahaaduhu ku dhufteen iyadoo la xoojinayo wacyigelinta ku aadan halista fatahaadaha iyo daadadka ee la filanayo maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka guga dhanka kalena ciidamo ka kala soo jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku dagaalamay duleedka Galkacyo wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug uu ka dhacay duleedka magaaladaasi dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Teerage oo galbeedka uga beegan Galkacyo waxaana deegaankaas saldhig ku leh ciidamada daraawiishta Puntland dagaalkii dhacay ayaana waxa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo la xaqiijiyay ugu yaraan 3 ruux ay ku dhinteen dagaalkaasi halka tiro kalena uu dhaawac ka soo gaaray waxaa deegaanka lagu dagaalama ka jira abaabul ciidan waxaana labada dhinac dagaalamay soo kala gaaray gurmadyo ciidan sida dadka deegaanka ay ku soo waramayaan
gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur ayaana sheegay in dagaalkaas ay soo qaadeen maleeshiyaad ka yimid dhanka Galmudug isla markaasna ay dib u gurteen sidoo kale waxa uu xusay inaanu aaminsaneyn in ay soo weerareen ciidamo ka tirsan Galmudug ama maleeshiyaad beeleed balse ay ahaayeen koox abaabulan oo ka yimid dhanka Galmudug sida uu yiri deegaanka Teerage ee galbeedka Gaalkacyo ayaa waxaa horey uga dhacay dilal ku saleysan aanooyin qabiil kuwaas oo aan wali xal laga gaarin iminkana waxaan u eegaynaa xog ku aadan dowladda Qatar oo wafdi u diraysa Somaliland iyo ujeedka ka dambeeya dowladda Qatar ayaa dhawaan la filayaa in magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland uu dirto wafdi culus oo ka qayb noqonaya mucaawino dhawaan ee dowladdaasi ka soo dejinayso madaarka Hargeysa sida ay tibaaxayaan xogag aanu ka helayna safarka wafdigaas ayaa ku soo aadi doona dhamaadka ama bilowga toddobaadkan cusub iyagoo la socda diyaarad mucaawino caafimaad ah oo wax weyn ka caawi doonta xukuumadda Somaliland dhanka la dagaalanka cudurka coronavirus ama COVID-19 wafdigaas ayaa la filayaa in deeqdaasi ay ku wareejiyaan guddiga u diyaar garowga iyo ka hortaga Somaliland oo madaxweyne Muuse Biixi uu igmaday in ay hormuud u noqdaan dagaalka ka dhanka ah coronavirus manacada ilaa iyo hadda in deeqdaasi ay ku imaanayso codsi ay Somaliland u gudbisatay dowladda Qatar iyo in si iskeed ah ay Qatar u soo gaarsiinayso mucaawinadaasi xilli dhawaan dowladda Imaaraadka Carabta ay deeq caafimaad ka dejisay magaalada Hargeysa dowladda Qatar ayaana inta badan lagu tiriyaa inay xiriir dhow oo saaxiibtinimo ah ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona deeqdan la filayo in dadka qaarkood ay u arkaan in Qatar ay daneynayso inay xiriir diblomaasiyadeed oo cusub la samaysato Somaliland walow uusan si rasmi ah u cadeyn arrinkaasi waxayna deeqdaasi ay noqon doontaa midii ugu horeysay oo nuuceed ah oo dowladda Qatar ay si toos ah ugu deeqdo xukuumadda maamulka Somaliland halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka al-shabaabna waxa ay toogteen Yaasiin Maxamuud oo ay ku eedeeyeen in uu u shaqeynayay Mareykanka kooxda al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay ku toogteen nin ay ku eedeeyeen in uu basaas u ahaa dowladda Mareykanka ninkan oo magaciisa lagu sheegay Yaasiin Maxamuud Cumar ayaa al-shabaab ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ee CIA-da maxkamadda al-shabaab ayaana sheegtay in Yaasiin uu qirtay in xogta iyo lambarada xubno ka tirsan al-shabaab u soo diray sargaal Mareykan ah oo ku sugan xirada Xalane ee magaalada Muqdisho kana tirsan hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ma jirto cid xaqiijin karta in Yaasiin uu galay dambiyada lagu eedeeyay iyo qirashada al-shabaabka ee sheegeen inuu sameeyay sida maxkamadda al-shabaab ee sheegtay Yaasiin iyo sargaalka CIA-da ayaa waxa isku xiray sargaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka Soomaaliya maxkamadda shabaabka oo warkeeda ay baahiyeen warbaahinta kooxdaasi taageerta ayaana waxa ay sheegeen in uu Yaasiin soo qaatay qandaraas la xiriira in uu keeno macluumaad dhameystiran oo lagu dili karo madax ka tirsan al-shabaab oo ku sugan Shabeellada Dhexe iyadoo loo balan qaaday lacag badan al-shabaab ayaana waxa ay sheegeen in Yaasiin ay gacanta ku dhigtay isagoo gacanta kula jira howlo basaasnimo al-shabaab ayaa waqtiyo kala duwan dilal ku fulisa rag ee ku eedeysay in ay jaasjuus u yihiin dowladda Soomaaliya iyo kuwa shisheeye inkastoo aan dadka loo soo bandhigin qaabka ay u dhacdo maxkamadeynta iyo dadka la eedeeyay oo qiranaya ama diidayaba waxa lagu eedeynayo Ra'iisul Wasaare Khayran waxa uu laba arin faray in ay diiradda saaraan guddiga ka hortaga COVID-19 Ra'iisul Wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiye shirka guddiga qaran ee ka hortaga COVID-19 oo ah mid joogto ah kulankan ayaa waxa looga hadlay dadaalada lagu jiro sidii looga hortagi lahaa cudurka COVID-19 iyo gurmadka deegaanada ee saameeyeen dadka roobabka iyo fatahaadaha wabiyada Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaana xubnaha guddigan oo u badan golihiisa wasiirada waxa uu ku amray in la isku dhinac wado dadaalada xakameynta faafitaanka COVID-19 iyo gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay wabiyada iyo roobabka Soomaaliya ayaana xilligan waxa ay wajahaysaa xaalada adag oo ka dhashay cudurka coronavirus oo Soomaaliya kiisas badan laga helay iyo fatahaadaha ka dhashay wabiyada iyo roobabka magaalooyinka sida Qardho, Baardheere, Bacadweyn iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya ciyaaryahanka Mas'uud Ozilna waxa uu deeq afurin ah ugu deeqay qoysaska danta yar ee Soomaaliya ciyaaryahanka caanka ah ee Mas'uud Ozil
oo asalkiisu yahay Turkish una ciyaaro kooxda Arsenal ayaa deeq afurin ah bishan Ramadaan siiyay qoysas danyar ah oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Suuriya iyo Turkiga. Mas'uud Ozil ayaana kafaalad qaaday afurinta 16,000 oo qof bisha Ramadaan, waxa ayna ka kooban yihiin 2,000 oo qoys oo iskugu jira Syrian iyo Turkish iyo sidoo kale 90,000 oo afurin ah oo ugu deeqay Soomaaliya. deeqdan afurinta ah oo ugu deeqay Soomaaliya ayaa lagu qaybin doonaa Muqdisho, waxa uuna u wakiishay hay'adda Bisha Cas ee dalka Turkiga oo ka howlgasha Soomaaliya. Mas'uud Ozil oo ah ciyaaryahan muslim ah ayaana u dooda muslimiinta iyadoo lagu xasuusto taageeridii uu siiyay muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka Shiinaha. ugu dambeyntiina israasaaseen ayaa ka dhex bilaabatay wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. xiisad xoogan ayaana la sheegayaa in ay ka taagan tahay xuduudda labada dal. ciidamada Kuuriyada Waqooyi iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa israasaaseen xoogani ee isku widaarsadeen xuduudda labada dal sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegeen in kuwa waqooyi ay rasaas ku soo fureen bar control oo ciidamadooda ay ku sugan yihiin kadibna ay jawaab ka bixiyeen. ma jirto wax khasaare ah oo laga soo wariyay dhanka Kuuriyada Koonfureed sida uu sheegay militariga dalkaasi, wali wax war ahna lagama hayo dhanka Kuuriyada Waqooyi. xuduudan oo 250 kilomitir ku teesan labada dal ayaa ah tan ugu ciidanka badan caalamka. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in ay xiriir la sameysay Kuuriyada Waqooyi iskuna dayeyso in laga hortago in xiisadda ay kasii darto. rasaasta la isweydaarsaday ayaana timid maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay ku warantay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu bulshada ka soo dhex muuqday kadib toddobaadyo ay jireen warar ka deerinaya xaaladiisa caafimaad. xuduudda labada Kuuriya ayaana waxaa ka buuxa miinooyin, goobo ilaalo, xeendhaabyo, waxaana ku sugan qiyaastii 2 milyan oo ciidan oo labada dhinac, kuwaasi oo daqiiqad kasta diyaar u ah dagaal. labada dhinac ayaana dhowr mar rasaas isku widaarsaday xuduudda sanadihii tagay. labada Kuuriya ayaana farsamo ahaan waxa weli ka dhaxeeya dagaal kadib markii dagaalkii Kuuriya ee 1950 ilaa 53 lagu hakiyay xabad joojin, balse aan la saxiixin wax heshiis nabadeed ah. iska horimaadkii ugu adkaa ayaana waxa uu dhacay 2010 markaasi oo Kuuriyada Waqooyi ee gantaalo ku garaacday xuduudda Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ay ku dileen 2 askari iyo 2 qof oo shacab ah, iyadoona dhanka Kuuriyada Waqooyina ay jawaab ka bixiyeen dhacdadaasi. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biro subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gazacaan halkan ku baahino. aragtidaada halka uusan ugu reeb muuqaalka share garee, waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka. dhammaantiina meel walba joogtaan waxaan leenahay Ramadaan mubaarak.